ciyaarta nala socota idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan waa 12ka bisha Oktoobar sanadka 2025 qodobadaan idin haya xilligan waxaa kamid ah dagaal qaraar oo ka dhax bilowday ciidamada wadamada Pakistan iyo Afghanistan ilaa iyo 7 goobood ayaa lagu soo waramayaa dagaaladu in ay ka soconayaan magaalada Islamabad iyo qaybo kamid ah gobolada kala duwan ayaa laga dareemayaa ciidamada wadanka Pakistan oo diyaar garoobaya isla markaana ku sii jeeda jihooyinka kala duwan ay dagaaladu ka dhaceen telefishinka dawladda ee Geo TV ayaa bilaabay tabinta wararka dagaalka isagoo si weyn u dhaliilaya ciidamada wadanka Afghanistan arintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo labada dhinac xiisadooda maalmihii ugu dambeysay kor u sii socotay isla markaana dawladda ku meel gaarka ah ee Taliban ee hogaamisa Afghanistan ay xiriir dhow la samaysatay wadanka Hindiya oo ay si weyn isku hayaan wadanka Pakistan dawladaha dunida ayaa durbaba bilaabay baaq degdega in ay diraan oo ku saabsan in colaadaasi la joojiyo ilaa iyo haddana waxaa la soo sheegayaa qasaarooyin kala duwan in ay ka dhaceen sida warbaahinta adduunka arrintan u tabinayaan muxuu yahay waxa uu ku salaysan yahay dagaalkan marka dhinacyo kala duwan laga eego dawladda Hindiya ma dagaalkii ay kula jirtay wadanka Pakistan ay dhinac kala wareejisay xiisadan cusub iyo isbedelada koonfurta Aasiya ayaan si gaar ah ugu eegaya barnaamijka khiyaarta nala socotay waxaan sidoo kale eegi doonaa madaxweynaha wadanka Masar General Abdi Fattah al-Sisi ayaa waxa uu ka waramay in ciidamo la geeyo magaalada go'doonsan ee Gaza isla markaana waxa uu bilaabay wadankiisa in uu juhdi iyo dadaal dheeraad ah ku bixinayo sida dib u dhis magaalada go'doonsan loogu sameyn lahaa xilligadood ay bilaabeen qaybo kamida Falastiiniyiinta caawa oo ay Xamaas leedahay waxa suuragal ah in aynu ka qayb galin guud ahaanba heshiiska la saxiixi doono dhawaan xiisadan sidee loo macnaynayaa muxuu Sisi u doorbidaya ciidamo halkaasi in la geeyo iyadoo darbaba dawladaha qaar ay isku dayayaan in ciidamo diyaariyaan warbixin ayaan idinkaga hayaa arrintaasi ciidanka Israa'iilna waxa ilaa iyo 10 duqeyn ay ka fuliyeen maanta koonfurta Lebanon xilli xiisada u dhaxaysa dawladda Oon iyo waliba Hezbollah ay aad u sii kordhayso koonfurta Lebanon waxa ku xoogan ciidanka Hezbollah oo hadda dawladda is hayaan Israa'iilna iska soo horjeedaan qodobadaas ayaan faaqidaya khiyaarteena la socotay idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka Barrow Show isla markaana share gareeya muuqaalka saaxiibadiina la wadaaga haddii dhinaca Facebook aad nagala socotana nagu soo biiro follow dheh haddii aad nagala socoto dhinaca YouTube kana subscribe dheh aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin ka baxday iyadoo maanta ilaa iyo 7 goobood oo kala duwan ay dagaal ka soconayaan wadooyinka kala duwan ee magaalooyinka waaweyn ee dalka Pakistan ayaa lagu arkayaa ciidamo wata gaadiid kolonyo ah oo ku sii jeeda goobta dagaalku uu ka soconayo waxaana sidoo kale ciidamada cirku ay bilaabeen in ay diyaaradahooda dagaalka ay kiciyaan si ay u duqeeyaan goobaha ay ka dagaalamayaan ciidamada Afgaaniyiinta warar kala duwan ayaa ka soo baxaya warbaahinta Afghanistan Pakistan gaar ahaan telefishinka afka dheer ee Geo News TV waxaa uu leeyahay dagaalka durbaba waxa muuqanaya in jabaaxad loo geystay ciidamada Afgaaniyiinta sida ay tilmaamayaan wararka ka imaanaya xadka u dhaxeeya wadamada Afghanistan iyo Pakistan ayaa sheegaya in dagaalo culus iyo waliba isrisaasayn xoog leh ay maanta oo Sabti ah ka dhaceen dhowr goobood oo xuduudda ku taala kadib markii ciidamada labada dhinac ay isku rideen rasaas xoogan oo istaba joog ah taas oo u muuqatay dagaaladu inay noqdeen kuwa faraha ka baxay sida ay sheegayaan warbaahinta Afghanistan ciidamada Taliban ayaa qaaday weerar ballaaran oo ka dhana saldhigyada ciidamada Pakistaaniyiintu ay leeyihiin iyadoo la sheegay in ay ka jawaabayeen duqeymo cirka ah oo Pakistan ay Khamiistii la soo dhaafay ka fulisay magaalada Kabul ee caasimadda wadankaasi Afghanistan afayeen hadda cutubka 201 ee ciidamada Taliban Wahidullah Muhammad ayaa sheegay in weeraradu ay ka bilaabeen deegaano u dhaxeeya gobolada loo yaqaan Kunar iyo waliba Nangarhar ee bariga Afghanistan kuwaasi oo xadka ay la wadaagaan Pakistan sida uu tilmaamay dhinaca kale sargaal ka tirsan ciidamada Taliban oo la hadlay wakaalada wararka ee Faransiiska ayaa xaqiijiyay
in dagaalku uu socdo isagoo sheegay in ciidamada Daalibaaniyiintu ay dagaal culus kula jiraan ciidamada Pakistan meelo kala duwan oo xuduud ah kadib duqeymihii ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee Pakistan ila deegaanka ah ayaa sidoo kale xaqiijiyay in israsaasayntu ay socotay in ka badan 2 saacadood oo toos ah iyadoo weli la maqlayo dhawaaqa madaafiic iyo rasaas culus oo ilaa hadda aan la ogeyn tirada rasmiga ah ama saxda ah ee qasaaraha dhimashada ama dhaawaca labada dhinac soo kala gaaray warbixin ka soo baxday militariga Pakistan ayaa tilmaamaysa in weerar iyo qaraxyo ka dhacay xadka Afghanistan sanadkan oo kaliya ay saabeen dhimashada in ka badan 500 oo qof oo ay ku jiraan 312 askari iyo waliba 73 sargaal oo booliis ah warbixinno caalami ah oo ay soo saareen hay'adaha qaramada midoobay ayaa sheegaysa in kooxda lagu magacaabo TTP si joogto ah uga helayso taageero dhinacyo kala duwan iyo hub gudaha Afghanistan taas ayaa sii horinaysa dagaalada labada dhinac u dhaxeeya sida wararkan ay tilmaamayaan dowladaha Islaamabad iyo Kabul ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku jiray xaalad kacsanaana iyo is-eedayna iyadoo Pakistan ay ku eedeysa Taliban inay ka kaabisay xakamaynta kooxaha argagixiso ee ka howlgala dhulkeeda halka Afghanistan ay sheegtay in Pakistan ay faragelin militari ku hayso dalkooda sidaas darteedna aysan aqbali karin inay arrimahaasi sii agtaan israsaasaynta culus ayaa gelisay isku daygii diblomaasiyadda ee lagu xallin lahaa khilaafka xadka labada dhinac in ay dhalisay xiisadan inay noqoto mid ka sii daraysa saacadihii ugu dambeeyay marka la eego wararka ka imaanaya xadka labada dhinac iyo dagaaladan ka soconaya 7 goobood ayaa dowladda Pakistan waxa ay bilowday durbaba inay sheegato guulo waaweyn oo militari oo dagaalka waxana warbaahintu ay eedayn ku dusha ka saareen wadanka Hindiya oo haatan xiriirka uu la leeyahay wadanka Afghanistan aad u hagaajiyay dowladaha Hindiya iyo Pakistan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay xiisadoodu ay kacsanayd kadib dagaalkii bishii May muddada 4 maalin ka soconayay xuduudda labada dhinac u dhaxeeya gaar ahaan gobolka muranka xooggan uu ka taagan yahay ee Kashmir sida uu qoray telefishinka Jio TV ee laga leeyahay wadanka Pakistan ciidamada Pakistan ayaa la tilmaamay baaliyay inay ka jawaabeen weerar ay soo qaadeen Daalibaaniyiinta iyadoo dagaaladu ay ka soconayaan ilaa iyo 7 goobood ay ka mid yihiin Angor halka loo yaqaan Ada Bajur iyo Kram waxa sidoo kale la sheegayaa deegaano ay ka mid yihiin Dir Jidral iyo sidoo kale halka loo yaqaan Bramja in dagaalada ugu xooggan ay ka dhacayeen saacadihii la soo dhaafay ciidamada Pakistan ee ku sugan saldhigyada xadka ayaa si degdeg ah uga jawaabay weerarka ayuu telefishinkan tilmaamay waxa uu sidoo kale qeexay in ciidamada Afgaaniyiinta gaar ahaan kuwa Taliban ay dareemeen qasaarooyin xoog leh kuwaas oo sababay uu yiri inay isaga cararaan deegaanadii ay ka howlgalayeen iyo saldhigyadii ay ku sugnaayeen ilaa amni ayaa tilmaamay in weerarkan uu dhacay xilli wasiirka amuraha dibadda ee Afghanistan ninka lagu magacaabo Amir Khan Muttaqi oo booqasho ku joogo dalka Hindiya arrintaasina ay ku tilmaameen warbaahinta wadanka Pakistan mid laga dareemayo walaaca iyo calaamad siyaasadeed oo muujinaysa xiriirkaasi inuu yahay qatarta sii horin karaysa dagaaladaasi sida ay ku doodayaan warbaahinta Islaamabad tani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo xiriirka u dhaxeeya Islaamabad iyo Kabul uu marayo meeshii ugu darneyd kadib markii xukuumadda kumeel gaarka ee Taliban la yiri waxay ku guuldareysatay inay ka hortagto kooxaha argagixiso ee dalkaasi Afghanistan ka howlgala kuwaasi oo weerar ku qaadaya gudaha wadanka Pakistan sida ay ku doodayaan warbaahinta wadankaasi Pakistan tan iyo markii ay Taliban ay dib ugu soo laabatay talada Afghanistan sanadkii 2022 Pakistan waxa ay la kulmaysay koror weyn oo ku yimi weerarada argagixiso gaar ahaan gobolada ku dhow xuduudda oo ay ka mid yihiin Balochistan Pakistan ayaa marar kala duwan ku celisay baaqeeda ku aadan in Afghanistan ay joojiso isticmaalka dhulkooda iyadoo weerar ay ka fulinayaan baliiro kooxda TTP oo ay dowladda u taqaano
Pakistan inay tahay mid argagixiso warbixin uu soo saaray guddiga kormeerka iyo cunaqabataynta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee loo yaqaano UNSC ayaa xaqiijisay in xiriirka u dhaxeeya Kabul iyo TTP lagu sheegay in Afghanistan ay taageero siiso kooxdaasi ku saabsan arrimo dhaqaale logistic iyo waliba in ay hubka ka taageeraan Pakistan ayaa martigelinaysa qaxootiga ugu badan oo Afgaaniyiin ah waxaana ay gaarayaan qaxootigaasi 554,000 oo qof waxaana ka mid ah 145,000 oo qof oo bishii Agoosto oo kaliya wadankaasi la qaabilay saraakiisha ammaanka ayaa sidoo kale sheegaya in maskaxda iyo maalgeliyaasha falalka argagixiso ay ku sugan yihiin Afghanistan isla markaana taageero ay ka helaan wadanka Hindiya taasi oo keenaysa in ay aad xiisada u sii kororto warar degdeg ah oo soo baxaya waxay tilmaamayaan in caawa la arkayo kolonyo kala duwan oo kamid ah ciidamada Pakistan oo u jihaysanaya goobta dagaalka Islamabad ayaa ku doodaysa in guud ahaanba ay doonaysa dagaalkaasi inay soo gabagabayso akhyaartana la socota ee wararkaasi wuxuu ku soo kordha dagaalka tabinta barnaamijyada kale ee barroosho ayaan ku faaqidaya balse markaan aan eego dhinaca gobolka bariga dhexe madaxweynaha wadanka Masar General Abdel Fattah al-Sisi ayaa ku baaqay in si degdeg ah ciidamo caalami ah loo geeyo magaalada go'doonsan ee Gaza halka dhinaca kale loo diyaar garoobo gulufka dib u dhiska ah ee lagu doonayo magaaladaasi burburtay in dib loo soo nooleeyo hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo mugdi xooggan uu soo kala dhaxgalay dhinacyada ku loolamaya magaaladaasi ee haatan wada hadalladu ay uga soconayaan halka la yiraahdo Sharm el-Sheikh oo Masar madaxweynaha jamhuuriyadda Carbeed ee Masar General Abdel Fattah al-Sisi ayaa ku baaqay in Masar ciidamo caalami ah ay u dirto gudaha marinka Gaza si loo hubiyo nabad waarta iyo hirgelinta heshiis ballaaran oo lagu soo afjarayo dagaalka isagoo carabka ku adkeeya muhiimadda ay leedahay heshiiska nabadda si loo siiyo sharciyad caalami ah oo ansixinayo golaha ammaanka ee qaramada midoobay sida lagu sheegay war saxaafadeed oo maanta oo Sabti ah soo saaray afhayeenka madaxtooyada Masar arintan ayaa lagu soo qaaday isgaarsiin u dhaxaysay ama wada hadal madaxweyne Sisi iyo waliba hogaamiyaasha uu ka mid yahay ninka hadda hogaamiya dalka Qubrus iyagoo ka wada hadlay xaaladda gobolka iyo sidii heshiiskaasi uu heli lahaa taageero caalami ah madaxweyne Sisi ayaa dhigiisa Qubrus ku booriyay in la gaaray waqtigii kama dambaysta ahaa ee dagaaladan la soo gabagabayn lahaa caalamkuna ay si weyn u taageeri lahaayeen sida arintaasi xal kama dambaysa loogu heli karo arrimahan oo dhan waxay ku soo aadayaan iyadoo madmadow uu soo kala dhaxgalay dhinacyada wada hadalka uga soconayo magaalada Sharm el-Sheikh ee heshiiska gaaray balse hadda muuqanaya in dhinacyada carabta ay ku doodayaan in aanay doonin heshiiskaasi dhankooda qalinka ay ku duugaan balse dhinacyada xiriirka waday